soo dhawaada gabadhan iyadoo meeshan marisay waxay dareemaysaa in ninkan odaga oo si qarsoodi u daba socdo meeshan maqaayada ay ku leexanaysaa laakiin isagoo ka harin waa kana uu daba socdaa isagoo aad u maleysay in lagu dhahay qoftan hadii ay ka jeesatay way kaamirqaysaa agteeda fadhiisana kadib gabadhan oo maqaayada ka shaqeeyda waxay arkaysaa ninkan gabadha mar fiirinayo marna ka sii jeesanayo gabadha intay u timaaday dalabka ka qaade laakiin isaga markay u timaado wuxuu u sheegaa inuusan wax dhan u baahnayn xooga kadib midda waytarada waxay arkaysaa inuu wali gabadha fiirinayo kadib waxay go'aansanay inay caawiso intay u timaaday waxay ku dhahaysaa ninkan agtaada fadhiyo maanta dhan uu ku soo fiirinayo muujidid miya laakiin middan arrinta dhan intay iska dhigatirtay gabadha waxay weydiinayeen dhinaca musqusha ku taalo markii ay musqusha aadana midkan wali wuu daawanaa isagoo niyadda ka dhahay alaya ka daba baxo midda waytarada wuxuu gabadha ka raba markii ay weydiiso wuxuu dhahay aniga xitaa musqusha rabaa laakiin waxay u sheegaysaa haddii uu musqusha rabo inuu sugo ilaa ay gabadha ka soo baxayso waqti badan oo ku dhigay adeegaya inuu musqusha gabadha ka daba aado ugu dambeyn inuu sugo ogolaana xoogaa kadib middan iyadoo shaqadeeda wadatay waxay arkaysaa midkaan oo gabadha boorsadeeda si kal iyo laaba u fiirinayo markii ay ogaatana inuu dhinaca boorsada u soo socdo taleefankeeda diyaarsanaysa in muuqaal uga duubto isagoo u jeeda xitaa in muuqaal laga duubayo muusan ka joogsan inuu boorsada alaab ka baxsado kadib booskiisa intuu kusoo laabto si tartiiba isaga fadhiisanaa sidii inuusan waxba samaynin halka middan waytarada intay booliska wacda ku dhehaysa ii imaado meeshan tuuga ii joogay isla markaas middan musqushay dib ugu soo laabatay midka odagaana daawashadiisa hore ka bilaabay kadib ayadii intay u timaaday waxay ku dhehaysaa anigoo indhahayga ugu jeedo ninka boorsada wax kala baxay laakiin iyadoo mar labaad arrinta intay iska dhigatirtay waxay bilaabaysaa inay meesha isaga tagto isagana waa kanaayo dabaraaca xoogaa kadib booliska ay wacdaa meesha soo gaara askarigii waxay ku dhehaysaa gabar maqaayadeeda joogtaa dhibaato ku jirta ee soo bax aniga kusoo tusaya meesha ka baxeen halka middan ay meeshan ku sugayso bas isaguna uu la socdo wuxuu weydiinaya aniga ma ii taqaanaa waxaan ahay professor dhiga jaamacadda ugu weyn waddanka midda waytarada askariga waxay tusaysaa labadooda taagan meesha baska laga raaco laakiin isla markii baska ay sugeeda imaanayo labadooduna way raacayaan askarigu middan wuxuu u sheegaa inuusan haysan caddeemo oo ninkan kusoo xiri karo waxay tusinaysaa muuqaalkii ay ka duubaysa markii uu boorsada baarinayay ugu dambeyn meel beer ah isagoo gabadhii sii daba socda askarigu intuu qabto wuxuu ku dhaha waxaa lagugu eediyey tuugnimo inaa boorso baaratay middan wax ka dhuma ma taqaaniin odagii daba socday raadinay iyada oo raadinteeda wadataa midii waytaradeed ka daba imaanay kadib waxay weydiinay adiga maxay ii daba socota maxay rabtaa waxay ku dhehaysaa isdaji aniga keligay ma ahayn anigii booliska ku daba socona maanta dhan hadda kadib si nabada waa ku joogi kartaa midka odaga ku daba socda booliska xabsiga u wadeen laakiin iyada waxay weydiinaysaa meesha ay hadda ka baxeen markay u tilmaantona way ka daba ordee wax yar kadib midka askariga iyo odagii ay ka daba imaanayaan waxay ku dhehaysaa ninkan wax dambiya oo leeyahay malahay gacmaha ka fur anigana dhib uusan ii geysan askarigu isagoo middan hadalkeeda aamini la uu gacmaha odaga ka furaa kadib odagii wadanay middan waxay taagan tahay waxa qaldan waxaan u maleynaa gabadha inuu wax siiyey ugu dambeyn askariga waxay ku qancinayaan inuu daba raacay ilaa ay gurigeeda ka tagaan waxaan arkaynaa marka iyadoo odagii beerta xaflad yar ugu dhex qabatay waxaas ay madax u gelinaysana ma kusii mashquulayno waxay weydiinayaan maanta waa maalinta dhalashadaada ee ma ogtahay middaas sidaas darteed anigu xafladan yarta meeshan kugu diyaariyay si aa ugu yaraantaada u soo xasuusatid kadib labadan iyo anagu waxaan ogaanaynaa inuu odagu yahay gabadha aabaheed intay u yimaadaan middan waxay u sheegaysaa inay ka raali noqdaan maadaama ay qastay waxayna ku dhehaysaa ninkan hadduu aabahaaga yahay mar hore maxay igu sheegi weysay waxay ku dhehaysaa aabahay magaciisa xitaa ma xasuusto sidaas darteed waxaa magaalada ugu soo waday inuu ugu yaraan dadka soo xasuusto kadib iyadu waxay weydiinaysaa haddii ay sidaas tahay maxay ahaayeen wixii uu boorsadaada ka dhex baarinayay jeebkiisa intay baartay waxay ka helaysaa shukulaato waytaraday waxay u sheegay wax uu boorsada ka baxsaday inay shukulaatadan tahay uuna jecel yahay kadib askarigu intuu ka raaligeliyey sida uu aabaheed ugu qaldamo wuxuu ku dhahaa aniga shaqa meeshan miiga taalo waa baxa iyaguna xafladoodii yareed dib ugu laabanayaan muuqaalkun intaas ku ekaya hadda halkaas soo gaarta leegnosa nimanka maqaayadan biisa ka dalbadan kadib biisi markii loo keenay midkan wuxuu bilaabay saaxiibkiisa inuu shaarbaha ka xiiro shaarbaha saaxiibkiisa oo ku xiray intoo qabta ayuu wuxuu ku darayaa biisi saaxiibkiisana wuxuu u sheegay haddii CC kaamiradan laga arko maxaa sameeyna annaga waxaas ay sheegayso waxba kama jiraan maqaayadan kaamir kuma xirna waxaan rabaa ninka maqaayad iska leh inaan waco nimankan shaqada laga buriyo ugu dambeyn nimankan waxay go'aansanayaan inay wacaan ninka maqaayad iska lahay kadib wuxuu weydiinay xagee joogtaa isagana wuxuu ugu jawaabay waxaan joogaa maqaayada agtiisa hadda ayaan gaariga kasoo degayaa ee maxaa jiro isagana wuxuu ugu jawaabay maqaayadaada waxa maanta lagu dhex sameeyay wax fiican ma ina aragta ayaan rabnaa booskiina wuu soo baxayaa midkaana saaxiibkiisa wuxuu ka codsanaya inay qorshe isla ogyihiin ay degaan kadib midkan wuxuu iska fiirinaa dadkii kadibna wuxuu arkaa nin gadaashiisa jiifo intoo nax ayuu wuxuu dhaa ninkaasna muxuu ahay midkaana wuxuu taagan yahay qorsheyn uu naga fashilma hadduu ninkaas oo na arkay annaga kadib intuu u yimaado ayuu wuxuu ku dhahayaa waxaan rabnaa inaan raashinkaas nala cunto biisa waa dhammeynlaana ee kaalniyo isagana markuu ogaado ninkan inuusan waxba maqlin kadib okeala intuu ka siib ayuu fiirinayaa wuxuuna ogaanayaa ninkan inuu indhoolo yahay intuu aad u farxayo saaxiibkiisa wuxuu ku dhahayaa qorsheyni waa inoo hergesha ninkaana wax ma arkaayo ee indhoolo waaye isagiina kursigiisa ayuu kusoo noqonaya ninkii maqaayad iska lahayna wuu soo galaya बुलाया आपको जी बताएं क्या मसला बन गया है साहब जी हमने पिज्जा ऑर्डर किया और इसमें इतने बाल गिरे हुए हैं क्या तमाशा लगाया हुआ है तुमने मुझे अपना किचन विजिट कराओ आइए